Cutubka koowaad hordhac ku soo dhowaada muuqaalka buug-gacmeedka goobta shaqada ee maaraynta meydka musiibooyinka kadib. Marka ay musiibooyin dhacaan, waxay qaadan kartaa maalmo ama toddobaadyo inta khubarada forensic ay yimaadaan haddiiba ay awoodaan inay halkaa tagaan. Tani waa halka laga yaabo in loo baahdo jawaab-bixiyeyaasha ugu horreeya ee soo helidda iyo maaraynta degdegga ah ee meydka, iyadoo la adeegsanayo hab raacyo xaqiijinaya xirfad iyo ixtiraam. Jawaab-bixiyeyaasha ugu horreeya waxaa ku jiri kara mas'uuliyiin deegaanka ah oo la tababaray, ururo, bulshooyin iyo dhakhaatiirta forensiga iyo mutadawwiciin. Buug-gacmeedkani wuxuu talooyin wax ku ool ah siinayaa kuwan jawaab ugu horreysa ka bixinaya natiijada ka dhalata dhacdo, isagoo ka caawinaya inay u dhaqmaan qaab dhowraya sharafta meydka. Waddada u xaaraya in qoysaska iyo mas'uuliyiinta ay qusayso mustaqbalka aqoonsadaan, xaqiijinaya raadraaca, sidoo kalena ixtiraamaya kuwa murugaysan. Wuxuu daboolayaa dhammaan tallaabooyinka muhiimka ah ee soo helidda iyo maaraynta meydka, oo ay ku jiraan u qoondaynta meyd kasta summad u gaara, sawir-qaadista iyo diiwaangelinta xogta, gelinta meydka bacaha meydka, kaydinta ku-meelgaarka ah iyo midda muddada dheerka ah, iyo aqoonsiga iyo diyaarinta goob xabaaleed sugan. Tallaabooyinkan oo dhan waxay aasaas u yihiin in khubarada forensigu ay si rasmi ah kuwa dhintay hadhow dambe ugu aqoonsadaan habab aad u horumarsan. Iyaga oo raacaya hagahan wax ku oolka ah, jawaab-bixiyeyaasha ugu horreeya waxay samayn karaan soo helidda meydka, waxayna ka caawin karaan habka aqoonsiga iyagoo xaqiijinaya hufnaan, saxnaan iyo ixtiraam.